markasta waxaynu maqalnaa oo laynoo sheegaa inaynu adeegsano VPN si aynu amni ugu isticmaali karno internetka oo aynu uga hortegi karno hakariska, trackinga iyo waxyaabo la midka ah. maanta waxaynu wax badan ka ogaan doonaa VPN in sida ay muhiimka u tahay inaadan ku kalsoonaan markasta adeegsigiisa iyo waxyaabaha beddelka u noqon kara VPN. soo dhawaada dhalinyaro. xilligan la joogo ee caalamku noqday mid digital ah ayna kor u kacday in lagu baraarugo ilaalinta xogaha shakhsiga ah. VPN oo laga soo gaabiyo Virtual Private Network ayaa noqday tool aad ugu soo caanbaxay in xogta krib gareeyo sidoo kalena uu qarin karo dadkaaga online-ka ah iyadoo arrinkan u muuqdo mid aad fiican oo markasta loo baahan yahay. xaqiiqada VPN-ku waa mid intaasi ka qoto dheer. VPN-isku waa sax inay kor u qaadaan privacy-ga, balse haddii aad keliya isku hadlayso adeegsiga VPN waa arrin si loo filaan ah ugu bandhigi kara danaha kala duwan ee internetka. marka VPN inkrib gareeyo xogtaada wuxuu kaa qarin karaa ISP-gaaga ama shirkadda internetka ka isticmaalayso, balse shirkaddaas waxay arki kartaa in xogtii la krib gareeyey iyadoo arki karta dhaqdhaqaaqaaga sida inaad wax adeegsanayso oo kale ama aad samaynayso streaming. dhanka kale VPN-iska qaar waxay liib ku sameeyaan IP address-kaaga iyo DNS request-kaaga taasoo soo bandhigaysa dhaqdhaqaaqyada browser-ka sidaasna ay u gudbiyaan dad iyagu daneeya xogaha. ta ugu layaabka badan ee marar badan dhacdaa waa in VPN-iska qaar si caadi ah ayna u krib gareenba xogaha, sida lagu arkay VPN-is caan ah oo dadyo badani si maalinlaha u adeegsanayeen. isagoo VPN bedeli kara location-kaaga, haddana website-iska qaar waxay tixraaci karaan GPS-kaaga ama xitaa network-iska localka ah ee teleefankaaga ama connector-kaaga ku jiro. tusaale ahaan markaad hotelka isticmaalayso wifi, hotelkaasi waxuu leeyahay location la garanayo. website-iska qaar waxay adeegsan karaan location-kaasi si ay ugu ogaadaan meesha traffic-ku ka imanayo adigoo adeegsanayayba VPN. waxay VPN-iska dhigaysaa kuwa bilaa faa'iida ah xaaladdaasi oo kale. xitaa VPN-isku awood ma laha inay qariyaan markad address-kaaga, kaasi oo ka mid ah waxyaabaha lagu tixraaci karo. haddaba halkan ayuu la yaab badan ka jiraa. haddaad u fiirsato VPN-iska caanka ah ee inta badan adeegsano waxay ku beeskaraysan yihiin 5 waddan oo kala ah Maraykan, Ingiriis, Canada, Australia iyo New Zealand. 5 waddan waxay ku jiraan group ay ku midaysan yihiin oo lagu magacaabo 5 Eyes. waxayna heshiis ku yihiin inay wadaagaan xogaha surveillance-ga iyo guud ahaanba xogaha sirdoon. taa macnaheedu waa xogahaagu waxay halis ugu jiraan inay ka gudbaan xuduudo badan. sida hore u soo xusnay VPN-isku marar badan waxaa la ogaaday inay liib ku sameeyaan xogaha oo ay iibiyaan. haddaba xalku muxuu yahay? VPN-isku waxaa xaqiiqa ah inay yihiin tool aad u qiimo badan loona baahan yahay, laakiin keligii waxba kama tarayo ammaankaaga xogaha. waa inaad ku darto heeris kale oo ku ilaalinayso ammaanka xogtaada shakhsiga. waxyaabaha samayn karto waxaa ka mid ah inaad adeegsato features sida markad randomization. feature-kan waxaa ku jira inta badan ogle systemska kaasoo si joogta ah u beddelaya markad address-kaaga oo ah waxa lagu aqoonsado deviceska kala duwan ee aad adeegsanayso. sidan soo furato feature-kan Android waxaa soo galsaa settingska waxaad kasii doorataa wifi, kadibna settingska wifi-ga aad isticmaalayso halkan waxaad ku beddeshaa randomized mark. sidaas la mid ah operating systemska kala duwan ee Windows iyo iOS waxaad si fudud uga soo heli kartaa network settingska. waxyaabaha kale aad samayn karto waxaa ka mid ah adeegsiga ad blockers iyo trackerska. waxaadna adeegsan kartaa tools ay ka mid yihiin view block region iyo privacy voucher oo ah tools ka hortagaya website-ku tixraacaan dhaqdhaqaaqyada internetka. waana tools aad loo hubiyo ammaankooda laguna kalsoonaan karo. waxaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha kor u qaadi kara ammaanka internetka adeegsiga double VPN oo halkii aad hal server adeegsan lahayd aad isticmaasho 2 server. kuwaasi waa qaar ka mid ah tallaabooyinka ay muhiimka tahay inaad adeegsato. waxaa si dheeraad ah inaad isticmaasho browsers ammaan ah sida Tor browser. haddaynu xusno qaar ka mid ah VPN-iska lagu kalsoonaan karo waxaa ka mid ah NordVPN iyo ExpressVPN. inkastoo labadaas yihiin premier oo inta badan aan la isku halayn karin kuwa free-ga ah, haddana kuwa free-ga ah waxaa si weyn lagu kalsoonaan karaa VPNs ay ka mid yihiin ProtonVPN. muuqaalkeena maanta intaas ay ku eegyahay. waxaan filaynaa inaynu wadaagnay xog aad muhiim u ah in dhalinyarada ku baraarugaan. haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar lana wadaag asxaabtaada si wax badan uga ogaadaan qodobkan aadka muhiimka u ah. mahadsanid.